madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa arbacadii shalay toole ku celiyay in dalkiisu uu awoodi karo inuu kordhiyo ciidanka nabad ilaalinta ah ee ku sugan Soomaaliya balse loo baahan yahay dhaqaale iyo qalab. Museveni ayaa hadalkan u sheegay warbaahinta 4 saacadood kadib markii uu kulan la qaatay xubnaha ammaanka ee qaramada midoobay oo booqasho ku jooga dalka Uganda. Hogaamiyaasha Uganda ayaa horay ugu baaqay caalamka iyo dalalka gobolku inay gacan ka geystaan sidii loo xasilin lahaa dalka Soomaaliya si aysan dalka u qabsan kooxaha dagaalka jira dawladda ay qaramada midoobay taageerto xarakatu shabaab oo ah kooxdii sheegatay qarax 80 qof ku dhawaad ay ku dhinteen oo ka dhacay magaalada Kampala ee dalka Uganda 12 July sanadkan. ururka midowga Afrika iyo IGAD ayaa iyaguna horay u shaaciyay inay ciidamadu ku sugan Soomaaliya tiradooda gaarsiin doonaan 20,000 oo askari si ay dib ugu soo celiyaan ammaanka Soomaaliya kadib 20 sano oo xasilooni darro ah. dhanka kale madaxweynaha Uganda ayaa codsaday in la xanibo dekedaha iyo garoomada ku yaala gobolada ay ka taliyaan xarakatu shabaab si loo baajiyo in ay helaan qalab dhaqaale iyo ciidamo ay ku xoojiyaan dagaalada ay kula jiraan dawladda ku meel gaarka iyo AMISOM. dalka Uganda ayaa waxa kaga sugan Soomaaliya ciidamada ugu badan ee nabad ilaalinta kuwaasoo ku shaqeeya magaca AMISOM, waxaana Museveni uu sheegay in mar walba ay helaan dhaqaale iyo korad ciidan.